waxaa magaalada Jigjiga ku kulmay gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya Admiral Maxamed Cumar Cismaan iyo darawal naftiisa halis u geliyay badbaadintiisa markii dambana 6 sano oo xabsi ah lagu xukumay laguna xiray jeel ciqaabeedka aadka u weynaa ee dadka faraha badan lagu ciqaabi jiray ee jeel Ogaadeen. arrintan ayaa dhacday kadib markii sirdoonka dawladda Itoobiya ay ka war heleen inuu gudaha ku sugan yahay gudoomiyaha jabhadda ONLF gaarigii qaadi lahaa oo Soomaaliya looga soo diray iyo 2 wiil oo la socdayna gacanta lagu dhigay sanadkii 2006 markii gaarigaasi fashilmay ayaa la go'aamiyay in la adeegsado gaari gudaha ku jira. aniga ayaana qabri dahar ka baxay sidaas ayaana la igu soo raadiyay ayuu yiri Guuleed Maxamed Axmed. 8 saac ee duhurnimo ama 2 ayaan ka dhaqaaqnay magaalada qabri dahar waxaana tagnay meel u dhaxaysa tuulada Jiic iyo Laandheer. halkaasi ayaana galabkii oo dhan ku sugayay halkii saac oo habeenimo ama 7 fiidnimo ayaa la ii keenay Admiral Maxamed Cumar Cismaan iyo madax kale oo ka tirsan jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya. Guuleed oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in safarkiisu ahaa mid aan sahlanayn isla markaasna ciidamada Itoobiya oo ka war helay ay gooyeen jidkii loo mareeyay gaalkacyo oo ay ku sii jeedeen. si degdeg ah ayaan ugu jihaysanay dhankaas iyo Laascaanood markii aan magaaladaasi u jirnay 1 saac iyo badh ayuu gaarigii naga jabay. admiraalku waxa uu la soo baxay telefoon turaaya oo watay gaari kale ayaana u yimid markaas ayaan ismacsalaameynay oo aan kala tagnay ayuu yiri Guuleed oo dib u milicsanaya safarkii halista badnaa. Guuleed ayaa birtii gaariga ka jabtay Burca looga keenay kadibna waxa uu ku soo laabtay magaalada qabri dahar. inkastoo uu muddo nabad ku joogay waxa markii dambe xogtiisa helay sirdoonka Itoobiya waxa uuna 6 sano ku qaatay xabsiga weyn ee loo yaqaano jeel Ogaadeen. hay-adaha xuquuqda aadamaha u dooda ayaa ciidamada liyu booliska ku eedeeyay inay xare ciqaabeed iyo meel dadka lagu bahdilo ka dhigeen xabsiga dhexe ee dawlad deegaanka Soomaalida kaasi oo loogu magac daray markii dambe jeel Ogaadeen. Guuleed ayaa ka mid ahaa maxaabiista ka markhaati kacay arrintaasi waxa uuna sheegay in isaga si gaar ah loo ciqaabi jiray maadaama uu badbaadiyay gudoomiyaha jabhadda ONLF Admiral Maxamed Cumar Cismaan. waxaan ogaa inaan naftayda iyo maalkaygaba ee halis u keeni karto balse waan u bareeray ayuu yiri Guuleed oo dib u milicsanaya waxa uu go'aansaday xilligaasi. dadka ay qiimaha weyn ugu fadhido ONLF iyo dagaalka ay wadaan ma aha Guuleed iyo dadka shacabka ee taageere oo kaliya balse madaxweynaha cusub ee dawlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka mid ahaa dadka aad ula dhacsan dagaalka ay ku jirtay jabhadda ONLF. waxa uu sheegay inay dhiigooda u hureen sharafta shacabkooda ayna mudan yihiin in baal dahab ah lagu qoro. Guuleed oo isbeddelka dhacay aad ula dhacsana waxa uu sheegay inuu gudoomiyaha ONLF salaamay balse aysan weli aad uga sheekaysan safarka ay wada galeen ee noloshiisa saameynta weyn ku reebay. waxauna rajaynayaa inuu maruun waqti wanaagsan la qaadan doono Admiral Maxamed Cumar Cismaan oo hadda ku sugan magaalada Jigjiga. waayahay bal ugu horeynba faahfaahin naga sii mooshinkan aad gudbiseen iyo waliba saad u gudbiseen. mooshinka galabtan gudbinay waxaan raacnay habraaci rasmiga ah. mooshinka marka la gudbiyo waxa laga eegaa in tiradii xilka qaadista oo ahayd 3 meelood oo meel oo ay tahay inay soo jeediso xilka qaadista noocan oo kala inay tirada sax tahay baa la hubiyaa. waxa kale la hubiyaa qaabka uu soo qoran yahay inuu qaabkii habraaci rasmiga ah uu yahay. marka waxa eega gudoomiyaha golaha shacabka haddii maqan yahayna ku xigeenadiisa maanta marka nasiib wanaag waxaa joogay gudoomiyaha golaha shacabka iyo xogayihii guud ee baarlamaanka. marka wixii loo baahnaa in moshinku uu noqdo mooshin meelmar oo diiwaanka gala waanu buuxinay waana laga aqbalay waana loo shaambadeeyay. sidaas aan ku gudbay mooshinkii xilka qaadista madaxweynaha maanta. waan gartay tiradoo kale dabcan haddaynu tilmaano 290 baa wararku ay sheegayeen inaad tihiin xagga tiradaasi ma intaasaa mise waxbaa ka bedela? intaas waa inta ugu yar laakiin sababa xagga amniga daraadeed
anaga ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa in la wadaagno in pointkii ama nuqdadii tirada ahayd intii loo baahnaa in ka badan aan gudbinay waxyaalaha kale sababa xagga amniga daraadeed baanaan hadda u sheegayn laakiin waxaa laga hor akhrin doonaa golaha shacabka xildhibaanada iyo tiradoodaba waxaa laga hor sheegi doonaa golaha shacabka marka ugu horreysta uu goluhu fadhiisto. marka goormu goluhu fadhiisanaya aad filaysaan in mooshinkiina golaha la horgeeyo oo la guda galo? taa waxaa go-aan ka gaari doonaa guddiga joogtada ah oo anna aan ka mid ahay iyo guddoonka maalinta la keenayo ee laga akhriyayo ee ajendaha lagu darayo waxay noqonaysaa iyana habraac kale oo la raaco heerusaadka ku qoran. waan gartay inkastoo de aad mooshinka qodobo kala duwan oo dee 5 qaybood aad u qaybiseen aad tilmaanteen sababaha maxaa haatan ku soo beegay in aad madaxweynaha Soomaaliya aad mooshinka ka soo gudbisaan isla markaana aad baarlamaanka hor keentaan? arrinta ugu weyn hadda soo kordhay waxa weeye cabsida ballaaran ugu abuurtay iyada oo dalku la sheegayo inuu soo galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu soo galay heshiisyo oo dalal kale la soo galay. heshiisyadaas waxay halis gelinayaan jiritaanka iyo madaxbannaanida iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed. marka waxaanu dareennay inay tahay waajib dastuuri oo na saaran inaanu hubinno in heshiisyada noocaas oo kale aanu ka hor istaagnayn madaxweynuhu uu dhammaystiro. waanu diiday si qayaxan buu diiday inuu nala wadaago heshiisyadaas waxa ay yihiin laakiin madaxdii isaga kala qayb gashay shirarka uu ka qayb galay ayaa si fagaara ah u sheegay heshiisyada waxa looga gol leeyahay. marka waa heshiisyo unaan rabo waxa weeye mooshinka waxaanu rabnaa inuu jawaab ka noqdo arrintaa oonu ku ilaalino qarannimada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed, dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed, dekedaha ummadda Soomaaliyeed oo aanu dalkeenu noqon dal si dhib yar loo dhiibi karo madaxbannaanidiisa oo dal kale loogu dari karo. laakiin waxa kaloo ka mid ah laakiin dabcan de heshiisyadaasi warbaahinta ku jireen warbaahinta way la hadleen waxa loogu guleeyahay qaranaysaan idinku aad ogtiina gaarkii muxuu yahay madaxweynaha iyo dawladduba way ka hadashay horana. madaxweynuhu may ahayn ka hadal keliya waxa waajib ku ah oo dastuuriya in heshiisyada markuu soo galo uu golaha baarlamaanka keeno. madaxweynuhuna safaro badan oo mala 40 gaari iyo dibadaha ugu baxay mid kaliya wixii dawladaha kula soo heshiiyey iyo wixii isafgaradii ah ee uu la soo galay nalama uu wadaagin. marka waa qodobo dastuuriga oo uu jabiyey laakiin anaga noogu muhiimsan waxa weeye hadda waxaa nala soo diristay cabsi ku saabsan xagga jiritaankeena. marka waxay noola muuqatay in cid kale oo naga sabati bixin karta arrinta khatarteeda leh oo madaxweynuhu noo horseeday in ay tahay in muhiim maxay tahay cabsidaas xildhibaan Cabdi Fataax haddaan ku weydiiyo inaan cabsi uun si guud u oran maxay tahay cabsidaas idinka gaarkaydu ku muuqatay dareemaysaa? cabsidaasi waxay tahay inaanu galle heshiis lala midoobayo dal kale inagoo ogtihiin xuduudaheena inaynaan sugi karin inagoo ogtihiin dalalka la leeyahay waa la midoobaysaan ama siyaasad ahaan loola midoobo ama dhaqaale ahaan loola midoobay in ciidamadoodii ay nala joogaan oo ay qayb ka yihiin AMISOM oo haddana dawladdu ay rabto inay soo gasho heshiisyo bilateral ama labada dawladood ee Eritrea iyo Soomaaliya ka dhaxeeya oo ah in ciidamo kale dawlad kale laga keeno iyadoo dawladdaasi ay ciidamadeeda halkan keento waana dawladaha la sheegayay inaynu heshiiska midnimo la geli doono. marka ciidankeedii nala jooga haddii haddana aanu qalankii ugu duugno macnaheedu waxa weeye si dhib yar bay annexation u samayn karaan oo dalkeenu meesha uga bixi karaa dhammaantiiba. waan gartay laakiin marka laga yimaado in wararkaasi soo baxayaan oo warbaahinta siyaabo kala duwan ay ugu soo noqonayeen idinka xaggeena xildhibaanaad tihiin xildhibaanadii dawladda federaalka tihiin maxaad caddayn haysaan ama aad ku caddayn kartaan in midowgaasi imanayo oo dabcan saa la isu dhexgelayo? taa waxaa noo caddeeyey madaxdii dalalkii kale ee ka qayb galay wadahadallada noocaasa. madaxweynehana wuxuu si cad u diiday inuu nala wadaago xogo ku saabsan wixii ay ka wada hadleen isaga iyo madaxda wadamada dariska. marka taasi waa mid. waxa kaloo iyana muhiima waxaa jiray ku takrifal awoodeed oo si isdaba jooga u socday intii uu talada hayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. arrintaas oo ahayd yani sida loo magacaabo hay-adaha dastuuriga garsoorkii iyo waxaa isku milmay hay-addii sharci dejinta iyo hay-addii fulinta. marka taasina waxay waajib dastuuri oo isaga saaran oo ku guuldareystay inuu ilaaliyo. xildhibaan Cabdi Fataax aad baan kugu mahadcelinayaa dabcan waqtigaaga. wadahadallada noocaasa madaxweynehana wuxuu si cad u diiday inuu nala wadaago xogo ku saabsan wixii ay ka wada hadleen isaga iyo madaxda wadamada dariska. marka taasi waa mid. waxa kaloo iyana muhiima waxaa
jiray ku tagrifal awoodeed oo si isdaba jooga u socday intii uu talada hayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo arrintaas oo ahayd yani sida loo magacaabo hay-adaha dastuuriga garsoorkii iyo waxaa isku milmay hay-addii sharci dejinta iyo hay-addii fulinta marka taasina waxay waajib dastuuri oo isaga saaran oo ku guuldareystay inuu ilaaliyo. xildhibaan cabdifataax aad baan kugu mahad celinayaa dabcan waktigaaga. wadahadallada noocaasa madaxweynehana wuxuu si cad u diiday inuu nala wadaago xogo ku saabsan wixii ay ka wada hadleen isaga iyo madaxda wadamada dariska marka taasi waa mid. waxaa kaloo iyana muhiima waxaa jiray ku tagrifal awoodeed oo si isdaba jooga u socday intii uu talada hayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo arrintaas oo ahayd yani sida loo magacaabo hay-adaha dastuuriga garsoorkii iyo waxaa isku milmay hay-addii sharci dejinta iyo hay-addii fulinta marka taasina waxay waajib dastuuri oo isaga saaran oo ku guuldareystay inuu ilaaliyo. xildhibaan cabdifataax aad baan kugu mahad celinayaa dabcan waktigaaga.